Waxaa maalmihii u dambeeyay dalka Kenya laga diiwaangeliyay kiisas kor u dhaafaya boqolaal kiis oo la xiriira caabuqa coronavirus. Taasina ayaa walaac ku beertay dowladda iyo Kenyaanka inuu sii kordhi karo xanuunkaasi. Meelaha ugu daran ee cudurka uu ku faafayo waa ismaamul goboleedka Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Sidoo kale xaafadaha kiisaska ugu badan laga diiwaangeliyay ee ku yaala caasimadda Nairobi waxaa ka mid ah xaafadda Kibra, Ruaka iyo xaafadaha kale isku raranta ah kadib markii ay wasaaradda caafimaadka dowladda Kenya ay sameysay baaritaano dheeraad ah. Nairobi ayaa ka mid ah meelaha aan la soo geli karin lagana bixi karin, haddana waxay u muuqataa in fayraska coronavirus uu si xun ugu sii dhex faafayo gudaha caasimadda dalka Kenya. Shalay ayay ahayd markii ay wasaaradda caafimaadka dalka shaacisay in la helay kiisas aad u tiro badan, kuwaasi oo gaaraya 127 kiis. Tirada guud inta xanuunka dalka Kenya uu soo ritay ayaa maraysa ku dhawaad 1745 kiis. Waxaana maanta la rajeynayaa in kiisas kale la diiwaangeliyo maadaama ay dowladda saacadihii lasoo dhaafay baaritaano caafimaad ay ka sameynaysay ismaamulada uu sida daran ugu sii baahayo caabuqaasi. Waxaana cudurka coronavirus dalka Kenya ugu dhimatay dad gaaraya 62 qof, taasi oo sare u sii kacaysa tirada dhimashada ee dadka ugu sii geeriyoonaya gudaha dalka Kenya. Dalka Kenya ayaa waxaa xanuunkaasi adduunka ka jira guud ahaan caalamka oo idin la iltaa dareynayaan ayaa gudaha dalka Kenya caabuqa coronavirus waxaa ka bogsaday tiro dad gaaraysa 438 qof. Xogayaha sare ee maamulka caafimaadka dalka Kenya Mercy Mwangangi ayaa sheegtay in haddii hal meel looga soo wada jeesto coronavirus laga wada guuleysan karo. Waxa ayna sheegtay in kiisaska sii kordhayo dalka ay tahay in maalin kasta baaritaano badan ay sameynayso wasaaradda caafimaadka Kenya. Ugu dambeyntii waxaa wasaaradda caafimaadka dalka Kenya hadda walaac xooggan ku haya ku dhawaad 140 qof oo macluumaad been ah laga qoray, kuwaasi oo haddana laga helay cudurka coronavirus mana la oga halka ay ku sugan yihiin. Abdiraxmaan Atore, wararka 5TV, Nairobi.